qaybta hore ee cervix-ka la yiraahdo ama qaybta hore ee makaanka oo ama ooska loo yaqaan oo isagu aan si dhaqso ugu noqon sidiisii iyo naasaha oo iyaguna. My name is Fatima Mohammed Awad. I'm one of the teachers in this school. We teach a specific lectures. We teach these are the care of women during pregnant, during delivery, and during after delivery. How they care that 3 different stages or different times. magacayga waa Sumde Maxamed Daawud waxaan ka yimi gobolka Daadmareed meel u jirta Burco 180 kiiloomitir waxaan ku xiisanayaa saan u yareeyo dhimashada hooyada iyo ilmaha yar waxay dareemaan daryeel la'aan dhakhtar uma dhowa mana qaarkood awoodaan inay dhakhtar ku keensadaan ma ay dhaqaale ay ku helaan dhakhtar ay ku yimaadaan waan ka xasuusanay macallin wax badan maalintii dhawada rabadaantii aan tagay gabadh baa macallin ku foolanaysay tuulada islaamu waxay yiraahdeen yaan la qaadina la baxnaanayo kadib waxay foolanaysay 3 cisho kadib markii la soo gudbiyay gabadha wajilaaday waxa loo soo gudbiyay Hargeysa gaar loo soo saaray maalin kale jidka ku sii jirtay dhakhtarka markii saas loo geeyay way dhimataydan ilmihiiba laga soo saaray haddana halka goobta aan joogo markaan wax garanayno wuxuu ban ka qaban lahaa. The challenges is the women are not understand benefit of midwife, benefit of and the MCH, benefit of healthcare. So that's a challenge is always we meet because that the people in the far away they don't have there's no doctor, there's no midwife, they live there. So when the women become on labor, she don't have anyone to help. If you look that image, it's very sad. You become very sad. So we went to. That's why we established this school and we train this midwives and nursing every day. You know that this program midwifery training, we have the 2 groups was graduated in this school. So all of them they are working in the far away and they make changes, more changes. They care the women is in their villages. And also they did an early referral when they see the problem or they see that women they cannot help in their home. They make a referral early to do action and prevent the death, and also another problem is related pregnant and delivery. كبرت معنا ده علمي أنا وحنا بيجباني قرني runtii dhowr 10 sano wax soo dhiganay waxiga anfacaya ma aan sooran kara maanta qof wuxuu tari kartaana sanadka maanta aan banahay